lix askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska danab ayaa ku dhaawacmay qarax ismiidaamin oo xalay lala beegsaday kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Cabdixamiid Maxamed Dirir. Taliyaha iyo kolonyadiisa oo ka baxay hotelka 5 Star ee koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa lagu weeraray gaari nooca Saarif loo yaqaano oo qof ismiidaamin u watay xilli ay marayeen meel aan ka fogeen hotelka, sida ay warbaahinta gudaha u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka. qaraxa ismiidaaminta oo la doonay in lagu dhufto gaariga taliyaha ayaa ku qarxay gaari ka horeeyay kan taliyaha, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay 6 askari. welina xaaladdu ay kacsan tahay. taliyaha ciidanka dhulka Jenaraal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo si kooban ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi, balse qaar ka mid ilaaladiisa ay waxyaalo ka soo gaarsay inkastoo uusan faahfaahin ka sii bixin khasaarahaasi. wararkii ugu dambeeyay ee magaalada la helay ayaa intaa waxay ku darayaan in 4 qof la xaqiijiyay oo shacab ah inay geeriyoodeen halka 6 kale oo dhaawacna la soo warinayo. ku dhawaad 10 qof oo isugu jira shacab iyo askar ayaa waxyaalo ka soo gaartay weerarkaas, mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ismiidaaminta ee lagu weeraray taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka oo maalmihii dambe deegaanada gobolka Mudug u jooga xalinta dagaal beeleed ka taagnaa gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii waxyeello ka soo gaartay qaraxii ka dhacay xalay magaalada Gaalkacyo. qaraxan ayaa lala beegsaday saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa qaybta 12aad ku sugnaa goobta ay masiibadu ka dhacday. waxa uu madaxweynuhu tacsi u diray ciidamada amniga iyo dadkii shacabka ahaa ee dhaawacay dhimashada ka soo gaaray qaraxa ka dhacay magaalada Gaalkacyo.